jacayl kahab oo habeen naftayda hag oo iho naftaadana codkani waxaa ka duubay Khadra Maxamuud Maxamed waxaa laga yaabaa inaad u taqaano magaca Khadra Cabdisinimo waa run oo waa la yiraahdaa magaciisa Khadra Cabdisinimona waa naanaysta aabaheed u baxday waqtigii dhalinyarinimadiisii waxaana ay naanaystaasi ay meesha ay ka saartay magacii aabaheed iyo kii awowgeed oo ahaa Maxamuud Maxamed Khadra goorfiidnimo ahayd oo aan gurigeeda ku booqday ayaa waxaan ku soo beegmay iyada oo shaqadii guriga ku guda jirta iyo waliba diyaarinta cashada habeenkaasi waxay si aad ugu mahadsan tahay inay u hakisay hawshaasi waraysiga aan u socday inay siiso gabadhan waa curadeydii waa marwayar weeyaan wabisa jirto Khadra imka 2 sano ayay 2 bilood dhaaftay 2 sano 2 bilood ayay dhaaftay Ramadaantii 2012 bishii 8 ayay dhalatay hadda 2 bilood wadiga ka gashaantii way noqotay ma sha Allah gabadhi kale ilaalinaysa ay haysaaba marka gabadhi yar baa ka dambeysay gabadhi ka dambeysay imka umul baan ahay maanta 13 cisho ayaan umul ahay waxaan u bixiyay Maariya gabadhana Marwa la yiraahdaa ma aduman ka raacay waxaan noqonaysaa Maariya Mursal Muuse waa triple M laba ma wada kala soo reeyay saddex bay noqonayaan iyaga saddex ku noqonayaan Khadra gurigeeda waxay yimaada asxaab badan oo martiya oo odaygeeda iyadaba soo booqda iyada u shaqeysa sida waqtiga la joogayba ay ugu adeegaysay iyada ayaana badi shaqada guriga gacanteeda ku qabata sida ay sheegtay waxaana intaasi Khadra u dheer hawsha fanka oo iyana wax soo saarkeedu uu culayskeeda leeyahay imka anigu gurigeyga jooga ayaan wax walba qabsanayaa wax kasta waxaan kulwan ka shaqeeyaa haddana caruurtii baan dhinac ka haystaa haddana fanka laftiisa mid waxaan ku leeyahay waqtigiisa aan waxaan ku hayo weeyaan isla waqtigiisa oo buuxa waan siiyaa waan u qaybiyay marka waxa saa u sii culus qofku wuxuu isku cuslayn baa aan aaminsaneen culus laakiin waxa saa u sii culus ma aha waxa jirtay waqti anigoo intaan aan xaamilada ahaa aan waxaan ku leeyahay aan kaligay ahaaba jirtay oo ay saxaabtu ama fanaaniinta ama waxaan ku martida ama ehelku cid waliba ay guriga imanayeen inta baan aniga u shaqeynay laakiin chance markii dambe waxaan helay markii bishii 9aad aan galay ayaan inaan ii shaqeysay inantii iyo anaguna kulli waan wada shaqeysnaa midaan kaligeed ku daayay shaqada ma aha badi marka ay Khadra Sinimo ay diyaarinayso inay soo saarto hees cusub waxay ku diyaarisaa gurigeeda ama guriga Axmed Wali Ibrahim Furunle oo ah musicianka kooxda ay ku jirtay xidigaha geeska ama guriga ay kooxdu ay leedahay fanaaniin badan ayaa waxa ay ku amaanaan Khadra inay tahay marka ay hees soo saarayso qof xifdigeedu uu wanaagsan yahay marka ay xafidayso erayada abwaanku uu dhiibo ama laxanka heesta lagu qaadayo waxaan aad iyo aad u jeclay marka erayada abwaanka afkiisu ka soo baxo ee aan ka qorto ee laxanka aan ugu qaban ogahay ama xifdiga kale ee aan waxaan ku oran xooga saaray waxay tahay marna marka erayada abwaanka ka qaaday laxamistuuna ag fadhiyo ee aan u dhiibay laxanka waxaan ugu jeclahay laxanka markaas ayaan qabtaa marka mobilka lagu sii qabtay la sii xafidiyo waxaan ka sii kalsoonahay anigu marka uu afkiisa aan ka qabto marka hadii cajalada aan galiyana kama baxdo waxa ku fududeeyay dadka fahmada iyo waxaan ku weeyaan wahibo Ilaahay bixiyo fahmadaasi waxa kaliya ugu fudud ilaa aan marka aan kooxiyo kale ku soo jiriba waxay haydun aniga iyo gabadha Yurub la yiraahdo iyo waxaan ku labadeedaas isku talent ayaan aad ka simanay halka ayada xafidka marka noqoto wadaad muusikiistu mid noogu dhibtooda maba ahaba isagoo halka iska fadhiya ayuu dhahdaa u yeer uu ayar mun ka qabtaa ilaa inta aan fanka ku soo jiray waxaan arkaa fankaas ilaa iyo saacadaha dambe ka bilow 2 3 4 xilliga horta ugu sanqadhu yaraato ama jabaqdu ay ugu wanaagsantahay maqal ahaan iyo xafidaad ahaan iyo waxaan ku waliba duubis ahaan sidiisaba fanku habeenkii ayuu shaqeeyaa maalin cid aaminsan inuu fanku shaqeeyo ma aha habeenkii wax walba xaasil iyadoo waxaan ku wax walba kala degan heesaha degan iyo laxanka degan iyo maskaxda deganiba ay wax walba qabataa iyadoo caawi kadib waxaan ku la soo qeybiyo la soo xafiday ayaa xilliga ugu lagu shubo codka ay xilliga tahay runtii xilligaasna waa dhabti waxaan adibta gareynay oo aan waxaan ku shaqadeeda ku saleeyay
dhowrkii sanne ee lasoo dhaafayba waxaa marar kala duwan ay warbaahinta websaydyada qaarkood ay qoreen warar ku saabsan inay Khadra Sinimo iyo odaygeeda Mursal Muuse ay isku dhaceen. Khadra Cabdi Sinimo ayaan arrintaasi wax ka weydiiyey. wallahi weli haddaan ku dhacdo waan is qabanay ama waxbaan isku khilaafnay ma jirto inta aan xaas yeelanay dad isjecel oo waxaan ku riswata dadku way arki lahayn dadka kala tagay runtii ama dadka isaystana wala maqli laha ma qarsoonto waxa weeyaan dadna jecel anu arka jacaylun baa waxaan ka yeersinaya aragtiday malaha naarka waayeen iyo waxay tahay miyaan garanaya ha iminka muddadii iyadoo muddo hore ideysay sanadkii horta waxaan u qaybiyay saddex jeer baa la soo weeraraa mar la yiraahdo wuu furay mar la yiraahdo wuu istishay mar la yiraahdo walba sidana way hinaasisanta ma garad iminka laastankii anigu dubay ka yimid ramadaantii baan magaalada Hargeysa soo caga dhiganay ramadaantii waxa magaalada noogu jirtayba wuu furay YouTube-ka waa hada mobile aan kamarad movie lagaga qaaday Facebook-giisa mar lagu dhibay oo magaciisa inta badan aad loo isticmaalay cod kale oo magaranaysa qof kale iska dhigaya Mursal ayuu ku qabtay aniga oo gabadheeda furay waxaas waxba kama jiraan waxa weyn dadka isjecel runtii waxaan ku lagu farxi jiray waa la eegan jiray laakiin waxaan kala yaabanahay dadka uu ku foogan taasina waxaan u arkaa anigu amal la'aan heesaha Hindiga ahi waxay ka mid yihiin heesaha ay isku maaweeliso ama ay dhageysato Khadra Sinimo marka aanay shaqo kala hayn waxaanay wada dhageystaan badi odaygeeda Mursal Muuse heesaha raaxiya heesihii soo jireenka ayay fanaaniintii hore ee waa bari oo kale ay qaadi jireen ayaan aad u dhageysanaa heesaha kale ee waxaan iska dhageysanaa Suudaanta heesa ay nooc waxa loo heesa jiro dhan mix tiyaasana isku raxoodna waan isku qabsanaa sometimes on ku dhatan waan dhageysanaa ee idaafitan habeen walba waan dhageysanaa taa kale inooshid way jirtaa mar Hindigan aad u dhageysanaa wax badan marba jadwalka marba dhinac waxaan ku jawiga saadaashati ayaan waxaan ku jeedinaa intii aan guriga Khadra Cabdi Sinimo joogay ayaa waxaan ka fikiray inaan profile-ka Facebook-geeda aan eego hadiiba ay commentiya ay dadku ay soo qoraan ama waxiisa leh oo aan wax ka weydiiyay jiraan waxaan ku qoray Facebook-geyga halka search-ka ee lagu baaro Khadra Cabdi Sinimo waxa meesha iga soo baxday dhowr iyo 10 account oo wada ah Khadra Sinimo Khadra waxaan oo accounts ah mayada iska leh keebayse talo isticmaasha anigu waxaan iska leeyahay Khadra Sinimo 143@hotmail.com kaasoo kaliya isticmaala Facebook-geyga laakiin aniga laftayda markaan arko magacayga iyo waxaan ku wari sawirkayga iyo kolba sawirkan soo dhigo oo la dhigayo aniga baa yaabo ummadii baa markaa waxa u aragtaaba in Khadra waxaan oo dhan ka baa mushtarisaba qof kastana personality-giisa qof Facebook kaliya iska leeyahay dadkaasi wax jirta dad fara badan oo la garanayaan way jiraan dad yani wax xataa aan ku wardeen magaca rag jira xataa oo ku war magaca la idaayo oo waa sida ceeb weeyaan qofna magaciisa ma ahayn lagu adeegtay faanis baan ku nahay kaga baxaan marka waxaan jeclaan lahaa anigu dadka in anagana waa nolol yimid bal hada dadka kale ayaan nolol tigi oo magacooda magac laba qof laguma wadaagay qof magaciisa in loo daayo taasana oran lahaa wali Facebook-yada Khadra Sinimo ku qoran tahay waxa jirdiido oo lagu soo qoro mid baan aad ugu mahad celinayaa dadka isticmaala magacayga wax ceeba iyo wax xumaana oo ay ku soo qoreen jirto waa faanis laakiin dadkii baa ku logoay dadkii kula soo xiriiriyay baa qof walba ku leeyahay waan kugu daalay Facebook-gaagana dad fara badan maxaad isla xisiisaa kayga dhabtaaba igu raadaan matid reelki bal dhinaca heesaha mid ka mid ah Khadra aan weydiiyo inay mid ka mid ah inoogu soo gabagabayso codkeeda sheekada jacaylka hab oo habeen naftayda hag oo iho naftaadana ihibe ani